السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي qaaliga meel kasta oo dunida daafeed ka joogtaan waa idin salaamay. gacmo furan ku soo dhawaada, qalbi saafi, niyadii jecel intaba. haddii marka kuugu horeysay aan soo booqatay channelka subscribe saar, like saar, videoga sii share kare si asxaab cusub noogu soo biiraan. waxaan ku leeyahay inta sadii aad samaysay aad iyo aad ayaa u mahadsantahay, jazaakallah. asxaabta qaaliga waa qaybteedii labaad sheekadeeni maqsadii noo socotay oo meel xasaasiya mareysa. waxaad leeyahay kusoo dhawaada, gacmo furan kusoo dhawaada. qisad waxay noo mareysay qaybteedii labaad, gabadhii oo adeerkeed nin wiilka intuu soo doontay, adeerkeed oo diiday, adeer oo la wacay oo socodi jiray oo diiday laga soo tagay. waxaa dhacday ayay tiri wiilkii markii saas isku kay diiday inaan haddana kala harin ee aan sii soconayo niyad jabin, maadaama jaceylkeena mid aad qoto dheer u ahaa ama mid tiirar aad u adag ku tiirsan uu ahay, inaan niyad jabin ee aan jaceylkeena sii wadano. ayaa dhacday ayay tiri sidaas u heen wada socon haddana mar kale ayaa waxaan go'aan ku gaarnay inaan bal haddana isku dayno oo haddana uu dhahay tiri mar kale ayaa cidi u tagaya oo aan ka soo doonayo markii muddo xoogaa fog ay ka soo wareegatay. sidii oo kaleete haddana waxay tiri adeer wuu soo diiday ilaa asaga wuxuu barabaayay tiri wiilkiisa inuu ugu darsado oo mab ii rabay tiri ninkan Soomaaliga oo dhan. maadaama hooyaday Soomaali ahaan marka hore lagu filcaayay lagu ficlaayay wuu diiday, wuu badiidanayay tiri nin kale Soomaali inaa u keeno. haddana wuxuu dhahayay tiri oo qeyl ka dhiganayay ninkan waa nin naga leebar sareeyo, nin nala leebar maadaama cidaan hanti adduun ay leeyihiin, beero geel adduunyo ay leeyihiin. waxay tiri waa yasayin wiilka maadaama wiil xoogiisa maala ama dhiidkiisa ku shaqaysta uu yahay. waxay tiri laakiin aniga waxay tiri waxyaabahaas laga sheegayo maadaama waxay tiri gabar kalena wuu u qabay wiil wuxuu tiri xamaashana wuu ahaa, anigase waxay tiri waxaas oo dhanba iima muuqanay tiri hantina waxba ilama ah. waxaa dhacday tiri markaan waxaan ku fikiray tiri markaan intaan adeer u tago inaan dhaho adeer wiilkan ma isiisay mise ima aadan siinin. marka labaad waay oo kaa soo doonanayo, haddii aad waa ku ixtiraamay, haddii aad isii weysid waxaan leeyahay waxaan aadaynaa meelaha laisku meersado, waan isoo meersanaynaa, hore ayaana u raaxayaa, dib dambana mid kugu soo laabanayay, waan idin ixtiraamay, waana marka ugu dambeysay ay arkaysaan. markaas sidaas dhahay adeer waxay tiri way ugu qeyl wuxuu tiri aniga wiilkayga sibil ayaan kugu ogahay, wiil kale kuguma ogi, mana aad bixi kartid. waxay tiri waa baxay, waxaan dhahay tiri waa raacayaa, waa israacnay tiri waa isla fakanay anigii wiilkii. waxay tiri markaan isla fakanay anagoo meel dhex tuulo sii marayna ayaa waxay tiri meel jidboonti ama meel askar joogaan ayaa waxay tiri inta la soo waxaa la yiri tiri qabta, waana la qabtay tiri wiilasha adeer ayaa ka daba imaadeen. sida ayaa waxay tiri inta laysoo qabtay, laysoo garaacay, laysoo jibiyay, waxay tiri guriga lagu soo celiyay oo guriga ayaan dib soo laabtay ayay dhahday. waxaa dhacday markaas inay hooyaday xanaaqdo way dhahday tiri gabadheeda haddaa ammaan la iisii wiilkaas ayay rabtaa, haddaa wiilkaas la siinin wiil kale lama siinaayo, gurigaas ayay joogaysaa, meel ay u socotana male, wax ninoo kale lagu daraayana ma lahan. hooyo waxay tiri adeer waa isku qayliyeen. ugu dambeyntii waxay go'aan ku gaareen tiri aabbo ayaa markaas xoogaa hadlay tiri waxayna go'aan ku gaareen tiri wiilka aan jeclahay in la isiyo oo la igu daro oo la ii fasaxo. sidii ayaa waxay tiri wiilkii la igu fasaxay, sidii ayaa waxay tiri meheriyahna lagu dhigay adeer inkastoo saraale uusan ka ahayn ee hadalka hooyo le uu huri waayay. sida ayaa waxay tiri meher la igu dhigay. wiilka waxaa dhacday tiri inuu dhaho waan soo laabanayaa, gabadha markii la isku keen meheriyaha iisii joogto guriga inta ka tabaabsheysanayo. sida ayaa waxay tiri guriga ku joogay adeer. haddana xoogaa markaa jooga ayuu wuxuu iska soo jiray tiri ninkaas biilkiisa ha qaadanin, waan kaa fasaqayaa, kabacdina waxaan ku siinayaa wiilkayga ayaan ku siinayaa, haba ninkaas wax ma haysto, faqiir waaye xoolihiisa isku qaadanin. waxay tiri waxaa dhacday tiri banaanka oo kale la ii diido wiilka inuu guriga soo booqdo kale in loo diido laga hor istaago. waxay tiri lacagtiisa qaadan la dhaho. wiilka waxay tiri waa u sheegay adeer sidaas ayuu dhahay tiri. waxay dhahday waayo dhahay tiri lacagtaada iska qaad, qofna iska tusin. lacagta waxay tiri sida ayaan iskaga haystay oo iska aruursan jiray ilaa waxay tiri malihiyay tiri banaanka ruqso aan banaanka u baxo ama ma awooday inaan banaanka u baxo oo la iima ogolo oo wiilasha adeer ayaa ilaalinayaan ama isoo celinayaan ii ogoleen. hataa meel wax uga baahdan waxay tiri iyaga ayaa i raacayo. waxay tiri sidaas waxay tiri guriga ayaa saas waxay tiri iskaga dhex jiraa.
haddii aan baxo waxaa loo maleynayaa tiri banaanka wax ka doonto inaan ninka u socdo ayaa loo maleynaya oo mabal iyo ogolay tiri saaid ayaa lay ilaalishaa tiri mararka qaar xitaa guriga ayaa laygu soo xiraa habeen waxaan dhacday tiri anoo wiilka la hadlaa ama la sheekaysanaya inaan waxay tiri la imaqlo oo wiil adeerna la imaqlo kadibna adeer igu dacweeyo sidaas darteed waxaa tiri guriga ayaa laygu qoflo hooyo waxaa amar lagu siiyey tiri in guriga ay igu soo qufisho oo aan ka bixi karin gurigaas oo haddii la iwaayo ayada ay mas-uul ka tahay sidaas darteed gurigaaba iskaga jiraat waxay dhahday tiri hooyo gurigaaga iskaga jir maandhay cidaan wax miiga maqlaayaan warkaygana maba qaataan aabbahaadna maqano jooga waaye gurigaaga iskaga jir waxaa dhacday tiri wiilka dhan in la ii diido waxaan go-aansaday tiri markaan go-aan ayaa hoos ka hariiqay oo ahay tiri wiilka maadaama taraag loo ahaay tiri in marka magaalada soo gala teleefonka soo wax marka magaalada soo gala waxaan go-aansaday tiri in aan raaco markaan waana ka harin oo muqdisho aan isla aadno maadaama isaga markaas muqdisho uu sii socday waxaan go-aansaday tiri inaan baxo waxaan sameeyey tiri habeenkii ayaa waxaan sameeyey tiri daaqada ayaan ka booday tiri guriga daaqadiisa maadaama waxay tiri irida ay kor iiga xiran tahay oo xabsi caadi iga igeliyeen tiri irida ayaaba ii xirnay tiri oo kor iiga xiran ma laygu qooflaa waxay tiri cuntada marka la ii keenayo bees ayaa waxay tiri albaabkaas la fura iyo markaa masquul aadayo oo kaliya meel kale la iima ogolay tiri waxaan go-aansaday tiri maadaama irida daanta ka baxaan xitaa masquul aadaya ama banaanka xitaa usoo baxo maadaama waxay tiri guriga isla deganahay cidda adeer oo guri weyn waaye tiri oo dhexda iskaga fura marka waa la dareemaya tiri wiilasha guriga joogaan guri maba ka dhammaadaan tiri waa un la sheegayaa tiri qof unbaa ku arkaya waxaan go-aansaday tiri maadaama guriga gadaashiisa ama dariishadiisa dambe ay banaanaayeen ayaa waxaan go-aansaday tiri in daaqada ka boodo si aaba la ii aragba aniga dhan oo halka sidaas aan u baxo ama aan u fakado maadaama intaa wax kasoo qabsana haddaan dhaho xitaa aan layga yeelin oo aan iridaas aana mari karin oo la iiba ogoleen inaan ka baxo iridaas qolkaasaan ku jiro iridiisa in aan soo dhaafo inaan masquul u socdo maahan maadaama si kale jaanis kale aan lai ogoleen waxaa danta ugu kalaftay tiri inaan ka boodo daaqada guriga sida ayaa waxay tiri daaqada uga boodo waxaa dhacday tiri daaqada uga booda inuu maryahayga qaar kamid ah ay iigu dhagaan daaqada oo kaleeta inay iigu dhagaan meel inay iigu dhagaan daaqada kamid ah sidaasna waxaa dhacday tiri dhaawac adag dhaawac aad u dheer oo dhabarka iga soo gaaro dhaawac aad u xanuun badan oo dhabarka iga soo gaaro jug meelna ee iga qalanta dhabarka kamid ah waxay tiri saaid u dhig baxo anuu cararaaya haddana dhig baxo waxaa dhacday tiri habeenka dhan sidaan usii cararaaya meel magaalada koonaheeda ayaa waxay tiri tuulo ah xoogaa aan degnay tiri magaala hadda saas weyn ma aysan ahayn ayaa waxay tiri wiilkii oo joogo inkastoo taleefonka aan watay taleefon waxay tiri iskula hadlaynay waxay tiri wiilkii oo taagan oo baabuurka la joogo ayaa u tagay tiri sidaas ayaa waxay tiri ku baxnay waxaa dhacday tiri inay ciddii itabaan oo isoo raadiyaan oo guriga layga waayo waa la fahmayay tiri markaan in aanan joogin oo aan baxay oo fakaday ayaa la fahmayay tiri waxaa dhacday tiri in lasoo raadiyo magaalada dhan layga raadisho meel kasta waxay tiri wiilasha taleefon u diraan meel jadboynti oo waxaa jirtay tiri marka magaalada ka baxsan oo wixii baabuur magaalada ka baxo ay soo maraan wixii magaalada soo galayana ay soo galaan ayaa jirta ayay tiri taleefon ayaa halkaa loo diro oo waxaa la yiri tiri baabuur alle iyo baabuurka idi soo mara oo waxay tiri sii socdo waxaa la dhahay tiri maxaa baara haddii gabar la socotane ka dejiyo wixii gabdha la socdanoo qabta way ka daba imaaneynaa wiilasha adeer sidaas ay waxay kusoo qaateen baabuurka markay soo qaateen way imaadeen anaga jadboyntiga ayaana lagu celishay oona lagu helay maadaama anaga aana ogeyn in taleefonba horteena la dhigay waa iska socono warmoog ayaa ahayn sidayaa waxay tiri baabuurkii la iigala degay wiilkii aniga sidaana lagu kala reebay waa dareemay tiri in aniga xagga taleefon la iiga soo hormariyey oo layla har rabo waa dareemay maadaama ka hore cadaadis badan guriga iga saarna oo waxay tiri aad u foojignaa aana aad u baqaayay oo cabsi walwal xaggaa lagu hadaba imaan doona ama xaggaa lagu reebi doona uu ahaayey waxay tiri sidii ayaa waxay tiri la ii reebay wiilkiis uu iska baxay sida ayaa la ii soo celiyey sidii haddana waxay tiri la ii soo celiyey waxay tiri guriga ayaa lagu soo celiyey waa la itumaa la garaac mar dambe tibaxaa la dhahay tiri waa la ii dhaartay ninkan waxaa la dhahay tiri lacagtiisa maba kuu soo diri karo taleefonka dhanaaba la iga qaaday tiri markaan oo waxay tiri taleefonka ayaaba haystay haatan taleefonkayaaba xitaa waxay tiri la iga qaatay bes waxaa dhacday markaas taleefonka la iga qaatay waxaa dhacday marka haddana waxay tiri ayaan joogay beri joogay ayaa waxaa dhacday tiri in haddana waxay tiri gabdho baxaynta arkay daaqad igala iyo gabdho asxaabi waxaa maqlay tiri inay baxayeen taleefon gabdho dharta inta ka qaatay
marmar ila mar waxaa jirtay tiri ee baxaan wiilasha aysan joogin waxaa dhacday tiri inaan taleefon kamid ii kaan dhaho waca gabdha asxaabe dhehen waa baxeenaa maaniblina baxeena meeshaas nooga ima waqtigaas saa baxeenaa waxay tiri sidii waxay tiri haddana waqtigii markii la gaaray habeenay ahayd waxay tiri haddana sidoo kale daaqadii ka booday waa soo cararay tiri markaan waa soo fakaday baabuur dhar iyo wax dhan soo raacin duhurka ayaan soo dhaafay tiri ayaan soo jeexay tiri oo soo maray ilaa iyo waxay tiri junboytiga xitaa aan soo dhaafay meel dhex ayaa waxay tiri baabuur socdo ayaan kasoo qabsaday oo gabdhaha ay la socdeen gabdhaha maadaama dad cishana ama wax ilaalina aysan jirin halkaas ayaa waxay tiri gabdhihii baabuurka ay la socdeen iga soo mareen wiilka ayaan sidaas ku wacday tiri lacag isoo tuuratay spoor oo baabuurka kusoo raaco sidaas ayaa waxay tiri muqdisho kusoo galay markaan alxamdulilah waxay tiri layma celin ama laymaba helin oo waxay tiri jeedboontigii ama meesha laga qaban lahaaba waan iska ilaaliyey baabuurka xitaa waxay tiri meel jeedboontiga iyo markuu maray xitaa waxay tiri waa ka degay waa lugeynayay oo sidaas ayaa waxay tiri hore liiga soo maraayay oo wiilal asnaqaan ayaa baabuurka waday sidaas ayaa waxay tiri muqdisho kusoo galay sidaas ayaan aniga ninkeyga ku kulna mar kale halkaas ayaa waxay tiri guriga geereysan oo ayaan deganayn waxaa dhacday tiri si iskuulka diidayay oo loola soo hanjaba oo dhahay see ku imaanaysaa meel heblaayo see kusoo tuulada see kusoo laabanaysaa xaafada see ku imaanaysaa waa ku dayrinay saan waaya waa ku habaarna habaarkeena qabtaa so waxay tiri adeer ii habaarahaba waxay dhahay hooyadayna waxay dhahday horta hor alla reerkaaga dhaqo reerkaaga dhabdhe adeerkaa warkiisa kor uga bax waxaa dhacday tiri ayaan markaa wada joogno wiilka ayaa waxaa liisoo sheegay tiri hooyadayna aad u xanuunsatay ee aad u jiratay waxaa danta u kalaftay tiri marka inaan noqdo maxay aan hooyo tago maadaama waxay tiri hooyo aan ka dheerahay waan tagay tiri hooyadayna maadaama waxay tiri lugaa curyaanka ahayd haddana ay xanuunsatay sokoriyo wax qabtay wixii ku kacay waxaa la dhahay tiri kooma ayay gashay si degdeg ayaan ku baxay tiri waan tagay meeshii tagay hooyo waxay tiri xoogaa waa la daadaaway xoogaa isbitaalkii kasoo baxday waxay tiri wiilkii waxay tiri markaasaa la dhahay tiri wiilkii midka furay haa maya ninkaas waxay dhahay wax iska furaayo ma lahan ninkay mii ogolaatay mise mii ogolaanin xoogaa waa la wada hadlay tiri marka waxaa dhacday tiri in markaas wiilkii maadaama u tago ayaan soo wada joognay in xoogaa la ii ogolaado oo la dhahay tiri waayahay aroos u dhig maadaama wixii hore meel le ahaayeen aroos hadii kuu dhig xafladii ayaa la dhigay tiri sida ayaan wiilka meel ku degnay tiri alxaas maxay tiri adii wiilka waxay tiri xitaa intaasna loogama harin waxaa dhacday tiri la isku kaayo diro oo wiilka xitaa dad loo soo adeegsado adee waxay tiri hooyo ayaa xanuunsatay tiri hooyo ayaa waxay xanuunsatay tiri xanuun aad u daran ayay xanuunsatay tiri maadaama waxay tiri oo habbalaayo wax loo soo akhri jiray waana tagtay tiri hooyo sidii ayay ku dhimantay tiri allah naxariisto sidii ayay hooyo waxay tiri ku dhimatay ee ku geeriyootay aabba iyo anaga ayaa soo harnay tiri aniga wiilkan waxay tiri si la isku kaydiraa marka dambe waxay tiri waa ku guuleysteen aakhir in la kala furo oo anaga ayaa waxay tiri markaan inaga soo dhamaatay oo waxay tiri xanaaq qof walba waxay tiri waraa meel loogu soo sheegayo qof kale soo kordhacaya sida ayaan waxay tiri ku kala tagnay waxay tiri furiinkaygana waxay tiri aniga ninkaygana ayaga ayaa sabab u ahaay oo waxay tiri lugta nagala bixin oo isku kaaya direen oo inuu reerkayga duma iyaga ayaa sabab u ahaa hooyadan waxay tiri iyadoo si hab u sixray hab u soo habaaraya waxay tiri marka dambe weeb iska dhimatay aabahay oo waxay tiri asagana aamus oo qataaran ayaa markaa waxay tiri soo haray waxaa dhacday tiri maadaama hooyana naga tagto hooyo waxay tiri xaqeena ay isku jirtay tiri inay noo soo celiso ama inay noo dirto waxaa dhacday tiri xoolihii oo dhan inay iyaga iska qaataan ee si rab u maamushaan anaga waxba nala siin meel waxay tiri magaalada gooniheeda waxay tiri guriga intana laga rabo gurina looga dhisay sidaas ayaan waxay tiri hantidii iyo xoolihii ay ugu damaashaadayaan aabbo hadda waayeel ayaa noo joogay tiri oo waxay tiri oo aan haynaa aabahay ay haynaa tiri kadib waxay tiri aniga guursadii kala guursay ilma ayuuna ilaahay ka siiyey reer dhaqan ayaan hadda ahay tiri aabahan ayaan halkaas ku heysanaay tiri anaga ayaan aabahan waxay tiri u shaqaysano kun xitaa waxay tiri hantida oo ka dhintay xitaa waxay tiri nagama soo gasho ama nagama siiyo sidaas ayaan waxay tiri banaanka uga taagnahay aabahan waxay tiri ayaga sixray waxaan u sixreen iyo hooyadayba ayaga sixray tiri waxaan u sixreen tiri hantidaas inaanan soo dhexgelin hantidaas anaga aan waxba ka yeel maadaama waxay tiri aabahan naag Soomaali u guursaday falankeeda waxay qabteen tinaanka Soomaalida si aysan iyo ilmaha dhashay xoolahaas in aysan qaadan oo aysan waxba ka dhaxlin ama dhaxalkaas soo galin wayna ku guuleysteen tiri oo waxay tiri banaanka ayaan hadda ka nahay balse waxay tiri ayagana waxay tiri kuma faa'iidin oo waxay tiri xoolihii waxay tiri beerta waxay tiri wax soo saar waa yeelo weysay oo waxay tiri habba
wixii waxay tiri markii la abuuro waa halaabaya dalagii oo si kale ayuu noqonayaa. waxay tiri hab wax baa ku dhacay tiri. marka waxay tiri ayaga waxay tiri laba ayay isku dagaaleen. iyaga ayaa waxay tiri marka dambe isku dagaaleen dhulkii oo waxay tiri laba kamid ayaa labada adeerka weyn ayaa adeer yar ayaa waxay tiri isku dilay. midna wuu dhaawacmay tiri, midna wuu dhintay. oo kii weynaa waxay tiri wuu dhaawacmay dhaawac aad u daran oo waxay tiri waxaa soo gaaray tiri xitaa waxay tiri qaarkiisa lugihiisa qaybta dambe aysan waxba dareemaan lahayn. oo waxay tiri sariirta waa la saaraa, waa laga soo dejinayaa oo waxay tiri wax uu dareemayo ma lahan. sidaas ayaa iyagana ku dhacday tiri. marka waxay tiri anaga xoolahana ay noo diideen ama naga holeeliyeen. marka qisadaas yarta ayaan jeclaystay in la wadaago. xaqa dadka yacni xaqa dadka haddii qofka walaalka xaqiisa aad ka hor istaagto ama xaqiisa aad cuntid sidaba ma faa'iideysid adduun aakhir labada ma liibaanaysid. marka qisas ayaa jeclaystay in la wadaago asxaabta qaaliga. intaan qisadan qiso lamid ku kulmi doono waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.